السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاش نعيمة ريق وقصة نقطة مرة بعد حاندي وضع متقانا كريم كاس وكريم واللوبان نقسمه كريم اوكي وانا دي فريا وهذا تصيا اوكي وكريم ادي ادو وناكسن وناتشرال كريم طبيعية وناتشرال كريم طبيعية سو ما ركتين ادي اد بو وناكسن رنتي اد بو وناكسن حلوة والله وناتشرال صابونتن waxay sameynaysaa wajigaaga waxay ka dhigaysaa xilwa ما شاء الله عليك يعني وجهك waxay ka dhigaysaa daw xataa da marsan jirtay wajigaaga bariga hore oo kaleeto ay kaaga dhigaysaa aad iyo aad buu wanaagsan tahay waa luubaan aad buu wanaagsan tahay luubaanteeni wadankeena ka bixi jirto la qaaday oo laga soo sameeyay saabuun baa laga sameeyay arkaysiin aad iyo aad buu wanaagsan tahay halkay taala ma taqaanaan Hargeysa garow hadaad joogtid faraanjiyaan ku leenay garow waad ka doonan kartaa kalkacay waad ka doonan kartaa وصاصة وتكدونا كرتا وصدح داسم بقولنا برانشي يولي مقدشو حتى وكدونا كرتا تنا متقانا حتى هاي وامل ملكي ململويات بونك سنتها ولي كمرة يغير مدو سوق 1 minute كمرة يغير مدو لا يكراشتك سوي شديه لا ها ماشي هو مدو بس waxaan kala idin hay ma taqaana meesha madow ahayd aniga ka soo baxay meesha haydi hay ma taqaana natural herbal maxay ma taqaana wataasa gabadha caadadu ka xidhmatay ee haday doonto kontanka jirtay caadadu ka xidhmatay iyo cudurku ka xidhay intaba waa u dawo ta umuli weyday alla dhasha bixiye taasna waa u dawo aad bi walaa fiican tahay waxa weeyaan hay taala magaalada Hargeysa dawadani aad iyo aad bay ku caawinaysaa hadaad u baahan tahay waxaad igala soo xidhiidhaa lambarkaaga xaq hoose igu reeb anaga kula soo xidhiidhayna ma fahamtay aad iyo aad buu wanaagsan dawadaas dumarka dhabar xanuunka maxaa yiraahdaa lafa xanuunka dumarka caadada ka raagtay kuwa ma garanaysaa ilmaha Allah bixiya laakiin inaad ilmo dhashid qayb weyn ka qaadanaysaa Allah bixiya anu bini'aadam baan ahay laakiin qayb weyn ka qaadanaysaa ma fahamtay markaas waxa sameeyay egfashinka muxuu keenaa ma taqaana dhaan wuxuu keenaa inaad ilmo dhalin ayuu keenaa marka egfashinka aad iyo aad looga dadaalo loola dadaalo oo la adimayo xaq Allahu akbar lagu ma hadla marka la adimayo laakiin maxaa sameeyay barnaamijkii baan ku guda jiray saabuunahan markii hore saabuunahan meel mugdiyan igu tusay marka imka meel la yiraahdo igu tusay ma arkaysaa luubaanti saabun laga soo dhigay weeyaan markii hore soo gali jiray markaa YouTube waxa soo marsan jiray afka xamuurad baa soo marsan jiray laakiin bil nasiib ma soo marsanin maanta bila xamuurad afka waxaan iska jecelahay in xamuurad marsado ilaahay amarkiisa afka wax buu jecel yahay kana taqaanay waa luubaanti green luubaan ninkii doonaya hablihii hore Soomaalida inuu noqdo oo midabkiisu uu soo noqdo ها bahalkan soo doonta yani dheehaagi labeentaadi waa ku soo noqonaysa waan qurux badnaanaysa waxaad noqonaysaa 15 jir marka lagu soo yaac creamkan lagu soo yaac aad buu fiicay waa luubaanti marka hore ma tusin moogta marab waxaad arki jirteen malab waxaan rahdaaye saaw kala soconayo malabkan waa dhagax waa malab asli malabka xataa waan hayna aad buu fiicay runtii waa asli malabku muxuu kala yahay koobiya asli taas ma taqaanaa waa original waa herbal
ما تقانا وحو يهي ودعر دعر قيد كبحدة ذاك جرتين لكن هو أصل دعر ويكني ما فهمتين دعرتي أو سأوكل سعونس دعرتي أو سأوكل سعونس هيك 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 ودعرتي والله ودعرتي هكذا كان ما أركيسي كان ومعصرة مدو أركي جرتان صومها تنوى معصرة كسوية أضبي ونيسنتها الكي لقيها لما تقانا مقايا هركيسة هكذا إيه هراي أعض بدن بقى إيه هراي لكن برنامجك halkaas uu iigu eegay waan salaamaya channelkayga haddaad daawataan subscribe ii saar oo like ii saar oo ii share gareey waa jimce maanta ma joogo meeshii shaqada gurigii baan joogaa aad baan nii jecel allah idin xafido waxaan nii sheegaya islaamahana aniga wixii dhex geliya ma laha khalad baa dhex geliya maxamed buskud anigu maxaan ugu heeyay maxamed buskud aniga maabahay waa dhalay waa may maxaa iga galay waa may maxamed buskud haddii baalaha laga rafay haddii aniga ima qusayso khalad baana ii geeyay islaamaha intaa laaleg hooyadii ka waaweyn khalad baa ii geeyay وهذا السلام يا قصدم به ونكون دقوا الله يقوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.